bilowga filimka laba nin ayaa gala saxare iyagoo damacsan inay soo qabtaan mulac weyn. Mid ka mid ah raggii ayaa shabaq dhulka dhigay wuxuuna ku guulaystay inuu soo qabto xamaaratadii weyneyd. Isla markaana ninkii kale ayaa arkay calaamad digniin ah oo dhulka ku taal oo ay ku qoran tahay Danger Zone, taas oo muujinaysa joogitaanka khatarta. Isagoo garanaya muhiimadda wuxuu ku booriyey saaxiibkiis inay goobta ka baxaan iyagoo shabaqii soo qaadanaya. Ninku wuxuu maqlay dhawaaq aan caadi ahayn, markii uu baarayna wuxuu helay god weyn oo ku yaal dhexda saxaraha. Wuxuu la yaabay qarsoodiga ku saabsan sida godkaas u samaysmi karo. Si kedis ah saaxiibkiis ayaa godka ka soo baxay isagoo aad u cabsanaya, qayliyana u raadinaya kaalmo si baan. Intii uusan xaaladda fahmin ayaa makhluuq aad u weyn uu soo qabtay oo la cararay. Isagoo baqdin ka buuxdo, ninkii wuxuu isku dayay inuu mootadiisa ku baxsado, balse nasiib darro way diiday inay kacdo. Makhluuqii ayaa gacantiisa weyn soo fidsaday wuxuuna ninkii u jiiday dhanka godka. Kadib sheekadu waxay u wareegaysaa walaalo fanaaniin ah oo ka wada heesaya naadi. Wiilka la yiraahdo Cow ayaa walaashii u sheegay heesta kadib in ninkii madaxda u ahaa uu si cadaalad darro ah u goostay in ka badan kala bar lacagtoodii. Isagoo ka xanaaqsan arrintan, Cow wuxuu sheegay inuu xiriirkii u jaray ninkii madaxda u ahaa. Intii ay walaalaha ku mashquulsanaayeen sheekada, booliiska la dagaalama daroogada ayaa yimid naadiga, waxayna bilaabeen inay baaraan calaamad kasta oo maandooriye ah oo ka dhex muuqata dadka. Nasiib darro, boolisku waxay u qabteen Cow inuu yahay qofka keliya ee looga shakisan yahay isticmaalka daroogada, inkasta oo uu aad u diiday uuna ku adkaystay inuusan weligii waxaas taaban. Boolisku way shakiyeen. Si kastaba ha ahaatee, markii uu dib u fikiray, Cow wuxuu bilaabay inuu ka shakiyo ninkii ay horay u wada shaqayn jireen ee uu xiriirka u jaray. Hadda Cow waxaa lagu siiyey damaanad inta baaritaanku socdo. Intii ay sheekaysanayeen, Cow walaashii waxay heshay wicitaan taleefan oo uga yimid hooyadood oo u sheegtay in awowgood geeriyooday. Markii ay warka maqleen, waxay markiiba aadeen tuuladooda si ay hooyadood uga tacsiyadeeyaan. Cow maskaxdiisu waxay dib ugu noqotay maalmihii carruurnimadii uu la qaatay awowgiis. Wuxuu xasuustay awowgiis oo barayay sida biyaha loo qodo si loogu caawiyo dadka tuulada ee haraadan. Muddo kadib, Cow iyo walaashii waxay gaareen guriga oo ay la kulmeen qoyskooda. Halkaas waxay kula kulmeen gabar la yiraahdo Fawn oo ahayd saaxiibtiisii carruurnimada, haddana noqotay YouTuber caan ah. Cow wuxuu isku dayay inuu la hadlo Fawn, balse way ka xanaaqsanayd maadaama uusan la soo xiriirin tan iyo markii uu tuulada ka tegay 10 sano ka hor. Sheekadu waxay u wareegaysaa yaraantii Cow iyo Fawn, halkaas oo Fawn aabaheed uu hadiyad ahaan u siiyey awowga Cow mulacyo maadaama loo arkayay inay qaali yihiin. Fawn ayaa soo qabatay mulacyadaas, balse Cow ayaa iska fasaxay isagoo rumaysnaa inaan cidna la xiri karin. Fawn way ku qanacday hadalkaas, waxayna noqdeen saaxiibo. Markaynu hadda ku soo noqonno, waxaan aragnaa labadii nin ee bilowgii filimka oo makhluuq khatar ahi ku xiray god. Si kedis ah, mulac weyn ayaa soo baxay oo dilay labadii nin. Muuqaalka xiga, Cow wuxuu bilaabay inuu daawado muuqaalada Fawn ee YouTube-ka. Fawn waxay qabanqaabisay tartan loogu dabaaldegayo 8 milyan oo taageerayaal ah. Waxay ku dhawaaqday in qof kasta oo biyaha tuulada ka soo bixin kara qodid uu ku guulaysan doono lacag badan. Cow wuxuu walaashii u sheegay tartanka, wayna isku raaceen inay ka qayb galaan. Walaalaha waxay la kulmeen saaxiib hore oo Cow ah, waxayna u sharaxeen hawshooda. Wuu ku raacay inuu ku biiro kooxda. Dhammaantood waxay aadeen halkii uu tartanku ka dhacayay, iyagoo halkaas ugu tegay tartamayaal badan. koox kasta waxaa la siiyey khariidad iyo qori iftiin leh si ay u calaamadiyaan guusha ay biyaha ku helaan. Dhanka kale, nin qani ah oo leh ganacsi godadka lagu qodo ayaa u yimid Fawn, balse wuxuu u dhaqmay si xun. Cow ayaa soo dhex galay oo joojiyey. Fawn ayaa riday qorigii iftiinka si tartanku u bilaabmo, qof kastaana wuxuu bilaabay inuu meelo kala duwan qodo. Isla xilligaas, laba nin ayaa helay mootooyinkii ay ka tageen raggii hore u dhintay. Waxay go'aansadeen inay mootooyinka qaataan, balse makhluuqii ayaa bilaabay inuu eryado iyagoo xawaare ku socda. Mulacii xariifka ahaa wuxuu hortooda ka qoday god weyn. Tani waxay keentay inay ku dhacaan. Dhinaca kale, Cow iyo asxaabtiisii waxay sii wadeen raadinta biyaha. Waxay arkeen dhowr saxan oo si rogan dhulka loo dhigay oo ay ku qoran yihiin erayo sixir ah. Walaasha Cow ayaa weydiisay sababta saxamada loo dhigay. Cow saaxiibkiis ayaa u sharaxay inay tahay hab qadiimi ah oo biyaha lagu helo. Haddii biyo dhulka hoostiisa jiraan, waxay isugu imaanayaan saxanka hoostiisa oo ay barjinayaan. Intii ay ka sheekaysanayeen, koox kale ayaa u timid oo uga digtay Cow iyo kooxdiisa makhluuq bahal ah oo aagga jooga. Wuxuu sheegay in ereyada sixirka ahi ay yihiin kuwa makhluuqa looga ilaalinayo. Balse Cow ma uusan rumaysan. Kadib, markii habeenkii la gaaray, Cow wuxuu gaariga dhexdiisa ka helay khariidad hore oo awowgiis lahaa. Khariidadu waxay calaamad u dhow buuraha ku lahayd meel biyo laga heli karo. Markii Cow uu barbar dhigay khariidadii Fawn, wuxuu arkay in calaamadaas laga saaray. Tani waxay keentay inay rumeeyaan in biyaha laga heli karo buuraha, waxayna qorsheeyeen inay aadaan maalinta xigta. Dhanka kale, intii dambe ee kooxdu way baxday markii mugdigu dhacay, balse 3 qof ayaa go'aansaday inay habeenkaas joogaan. Mid ka mid ah raggii ayaa aaday dhinaca kale, wuxuuna la kulmay Mulacii, taas oo keentay geeridiisii.
Mula'i ayaa madaxiisa ka jaray jirkiisa wuxuuna u keenay saaxiibadiisii kale. Iyagoo argagaxsan ayay carareen balse Mula'i weynaa ayaa soo baxay oo dilay labadoodaba. Subaxnimadii dambe markii Fawn ay ogaatay in saddexdii nin la waayay way walaacday waxayna go'aansatay inay joojiso tartanka. Balse maareeyaha Fawn ayaa la xiriiray ninkii qaniga ahaa ee tartanka maalgelinayay wuxuuna u sheegay go'aanka Fawn. Isagoo ka xanaaqsan ninkii qaniga ahaa ayaa u hanjabay maareeyaha. Isagoo cabsanaya maareeyihii wuxuu u yimid Fawn wuxuuna ku qanciyay inay tartanka sii wado. Fawn way ogolaatay. Kadib Cow iyo asxaabtiisii waxay gaareen godkii khariidada ku jiray. Markii ay galeen waxay arkeen gidaar qoyan taas oo Cow ka dhigtay inuu rumeeyo in biyo ay ka dambeeyaan. Wuxuu soo jeediyey inay gidaarka jebiyaan si dadka tuuladu biyo u helaan. Balse waxay markiiba ogaadeen in godku yahay guriga mulaca weyn kaas oo si kedis ah u soo baxay oo weeraray mid ka mid ah saaxiibadii Cow. Walaalihii waxay ka carareen godka si ay u badbaadaan. Waxay isku dayeen inay dadka u sheegaan makhluuqa balse qofna ma rumaysan. Si kastaba ha ahaatee markii dambe bahalkii ayaa dhulka ka soo baxay oo nin jiiday. Dadkii markaas ayay rumeeyeen Cow. Walaasha Cow iyo ninkii qaniga ahaa waxay ku dhuunteen baabuur weyn halka maareeyihii uu bannaanka ku haray. Makhluuqii ayaa helay oo dilay maareeyihii. Makhluuqii wuxuu eryaday Cow iyo Fawn markii ay baxsadeen. Waxay ku dhaceen god. Walaasha Cow ayaa baabuurka hoonkiisa riday si ay bahalka u mashquuliso. Bahalkii wuxuu aaday dhankii dhawaaqa taas oo fursad u siisay Cow iyo Fawn inay dhuuntaan. Godka dhexdiisa waxay ka heleen ukumo badan oo makhluuqu lahaa. Waxay kale oo heleen saaxiibkii Cow oo weli nool balse ku jira dabool adag. Inkasta oo ay isku dayeen way jebin waayeen. Dhanka kale walaashii waxay arkay bahalkii oo baabuurka dushiisa ku hurda. Waxay u guurtay baabuur kale. Balse markii ninkii qaniga ahaa uu sanqadh sameeyey bahalkii ayaa soo toosay oo weeraray isagoo godka geeyey oo ku xiray. Walaalihii waxay gaareen gidaarkii ay horay u arkeen Fawnna waxay sheegtay in biyaha ay ka dambeeyaan gidaarka. Waxay qiyaastay in bahalku gidaarka u dhisay si uu biyaha isaga difaaco. Walaalihii way argagaxeen markii ay tani arkeen. Waxay ka baxsadeen godka waxayna isku dayeen inay dadka u digaan laakiin qofna ma rumaysan. Kadib bahalkii ayaa soo baxay oo nin kale qabtay. Tani waxay keentay inay dadka oo dhammi rumaystaan sheekada walaalaha. Wuxuu kaloo qabsaday Fawn oo uu la tegay. Cow ayaa riday qorigii iftiinka kooxdii keliya ee u timidna waxay ahayd ninkii horay uga digay bahalka. Walaashii ayaa ku biirtay waxayna dejiyeen qorshe. Waxay bilaabeen inay muusig dheer shidaan si ay bahalka u soo jiitaan. Markii uu soo baxay way hareereeyeen oo weerareen. Bahalkii wuxuu ku laabtay godkiisii. Walaashii iyo asxaabteedii waxay galeen godka oo ay soo furisay dadkii ku xirnaa balse ninkii qaniga ahaa ayaa maqnaa. Fawn ayaa aaday si ay u soo hesho. Ninkii qaniga ahaa wuxuu siday qarax kaas oo ay dhigeen gidaarka qoyan. Cow iyo Fawn waxay heleen ninkii qaniga ahaa balse makhluuqii ayaa hortooda soo istaagay. Ninkii qaniga ahaa waa cararay isagoo Fawn halkaas uga tegay. Cow ayaa yimid wakhtigii saxda ahaa wuxuuna ku booday makhluuqii isagoo faas ku weeraray. Si kastaba ha ahaatee bahalku aad buu u xoog badnaa. Isagoo Fawn ku ceejinaya dabadooda Cow ayaa qorigii iftiinka afka kaga riday bahalkii taas oo ka dhigtay inuu wareero. Way baxsadeen Cowna wuxuu riixay badhankii qaraxa. Tani waxay keentay in gidaarku dhaafo oo biyo soo burqadaan. Bahalkii biyihii ayaa qaaday oo dilay. Cow iyo Fawn si dirqi ah ayay uga soo baxeen godka fatahaada. Kadib walaasha Cow iyo asxaabteediina way soo baxeen. Waxay ku farxeen biyaha dhulka ka soo burqanaya. Wiilkii qaniga ahaa ayaa godka ka soo baxay isagoo nool gacantana ku haya mid ka mid ah ukumihii bahalka. Tani waxay muujisay in makhluuqa aan gebi ahaanba la tirin oo ay dhashi doonaan qaar kale mustaqbalka. Halkaas ayuu filimku ku dhammaanayaa. Waxaan rajaynaynaa inaad ka heshay muuqaalkayaga. Hana dhaafina filimada kale ee shaashada ka muuqda. Hana iloobina inaad subscribe saartaan si aad u heshaan filimo kale oo la yaab leh. Nabadey.